jiri karaan ama ay jiraan dad badan oo ehelkaaga ka mid a ama waalidkaa qayb ka mid a ama asxaabtaada ama dadaa taqaanid maanta inay qabri ku jiraan aysan adduunku nooleen aysan maanta jaanis aysan u haysanin ay ku cibaadaystaan ee ilaahay maaragtay tooba iyo maaragtay inuu ilaahay subxaana watacaala oo dembi dhaaf ay ku weydiistaan laakiin adiga waxaa haysataa aada u nasiib badan tahay adiga waxaa haysataa jaanis aada ilaahay wax walba ku weydiisan karto marka jaaniskaas ka faa'iideyso si aadan uga qoomaynin waxaa kaloo haysataa maanta nolosha aad ku nooshahay inaad bedesho aad u bedesho nolol qurux badan waa inaad nolol qurux badan ku noolaato ilaahay subxaana watacaala waa xuquuq lagu siiyey oo qur-aanka iyo meelbu ku xusan laakiin haddii aad doorato inaad ku noolaato nolol fool xun oo dhib badan oon quality lahayn oo aan wanaagsanayn waxaa laga yaabaa 15 years 20 years adigoo dhallinyarnimadaadii iyo waqtigaagii oo kaasoo dhammaad inaad ka qoomayso kamoon ku noolaaw nolol qurux badan jaaniskaagana ka faa'iideyso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa gabadhiina nasra oo idin leh welcome to my youtube channel idiina wado muuqaal kaloo cusub oo dhiirigelina adigoo caafimaad qabo sameyn karo noloshaada isbeddel aada u fara badan oo dhinac walba ah hadday ahaan leed dhinac maaragtay waxbarashana maskaxdaada aad kobcisid waayo maskaxdaan haddaadan kobcinin isbeddel ma sameyn kartid shaqo yar haddaad haysato maanta waxaan ku dhahay oo aad bariiskaada yar kasoo dhacsato maanta qof ku fikiraayo waxyaaba shaqadaas ka duwan oo markaas aad isdhehaysa bal mustaqbalka haddii aada noolaato waxaa wax ka duwan sameey oo jaanis haysto laakiin jaaniska aan ka faa'iideysanaynin mataa qof rabo inuu diintiisa iyo ilaahay subxaana watacaala inuu dhawaado rabo qalbiga ka jecel laakiin haddana u dhiganayo beri dambo next week bisha dambo next year dadkaas ma ka mid tahay oo oga waa ka mid tahay waa isqarinaysaa oo kooga waa ka mid tahay waxaan ku leeyahay haddii aad qof caafimaad qabaa tahay oo dadkaas aa ka mid tahay oo jaanisidaas hore ay kuu soo mareen haddana ay ku hor yaalaan keliya waxaa u baahan tahay inaad ka baxdid sirkalka yar ee aad ku jirto inaad ka baxdo marka isku day inaad sirkalkaas yar aad ku dhex jirto wax yar lugtooda bixi xataa kuma dhahay tartiib jaaniska ugu faa'iideyso isbeddelka u sameey yacni matalan shaqa haysataa hala marba dhehaysa shaqadaada waxaa laga yaaba waxyaaba badan inaad ku qanacsata bili-aadanku weligiisba 100% ma qanco wax unbuu raadinayaa shaqadaa maanta aa haysatid haddii maaragta aad ku qanacsaneen qaabkii u socoto dhaqaalaha kaasoo galo tartiib maaragtay maxaa bedeli kartaa raaso jaanis adduunka waa wada jaanis laakiin jaaniska wuxuu rabaa inaa raadisoo rabaa jaanis guriga intuu kuusoo albaab kuusoo garaaco ku dhahaayo ma jiro okay inaa raadisoo kaa rabaa jaaniska waa haysataa laakiin waa inaa raadisaa inaa waqti gelisoo kaa rabaa waqtigaaga haddaa maalayacni ku luminaysa ka waran yaa abaa cambara haddii anaag tahay waqtigaaga ku luminaysa ka waran haddii aan intahayna odaxaayo meel buu kaa soo wacday iyo meel buu laga istaago sheex lagu cabo lagu qayli a taaganta tan se hormarine yaa maskaxdu kuma hormarto in dad lala qayliyo dad lala buuqo maskaxdu waxay ku hormartaa in wax la aqriyo qur-aanka la aqriyo buugaagta la aqriyo wax la sirij gareeyo yaa maskaxda wixii hormarinayaba haddii aadan ka qayb qaadanin oo maalin walbana aada leedahay inaa isbedelaan rabaa xagee ku dambeynaysaa is leedahay
marka si aadan u qoomameynin waxa ku dadaashaa horta inaad iska joojisid dhaqamada xunxun ee haysato caajiska because adduunka hadda markii oo maaragtay daraasad la sameeyay waxaa la ogaaday dadkoo dhan waxay jecel yihiin inay wada guuleystaan dadkoo dhan waxay jecel yihiin inay isbeddel sameeyaan laakiin sababta ka hortaagan waxaa waaye qaarkood waxay leeyihiin caadooyin xunxun oo caajis qofkii inuu maaragtay oo waqtigiisii maaragtay been oo ku lumiyo inuu waxaan macno u lahayn oo dhan waqtigiisa uga lumo ugu waqtiga waa waxa keliya ee bili-aadanku ku kala hormaray sidoo kale maskaxdaadana waa inaad maaragtay aad maskaxdaada aad training garaysaa maskaxdaada u jimcisaa anaga inta badan markaan bulsho Soomaaliyeed nahay weliba hadda aad dadku usoo bateen maaragtay jirkooda wiilasha murqaha dhisanayo gabdhiyo miisaanka iskirida iscaateena maasha Allah tabarakallah weldon ay leeyahay laakiin waxaan ilownay dhamaanteena isku duuban aniga xitaa hada isku soo daro maskaxda inaan dhisno waa maskaxda waa muruq maskaxda waxa dhisa marka waxa ugu weyn waa akhriska inuu qofku wax raadiyo inuu qofku intuu meel fariisto uu maskaxda uu ka shaqaysiyo taasoo ku liidanaa maskaxdeena marka aan dhisi wayno maaragtay maskaxdeena aan maaragtay aan u diidnay maaragtay inay challenge ay ka qayb qaadato ayaa wixii sababtay inaan dib u dhac inaa xataa hadal wanaagii xataa oo kaa lumo inaa bili-aadanka hadal wanaagsan xataa aadan ku dhihi karin naftaada hadal wanaagsan aadan ku dhihi karin adduunkana waxaa ugu xun maskaxdaada adlista hadday xataa dad kale wax gaarsii karin adiga waa inay ku motivate garaysaa maskaxdaada waa inay adiga ku sii kartaa motivation oo aad sirta subaxa uga soo kacdo oo aad jaaniska haysato aad uga faa'iideysato si aad tomorrow aad u qoomeyn waayo qoomadu waxa ma tarto marka waan ogahay adiga dhageysanayo ama i daawanayo waxaa laga yaabaa inaad marar badan aad soo qoomeysay laakiin weli aad nooshahay oo aad caafimaad qabtid number 1 waxaad tiraahdaa alxamdulilah marka labaadne hadda bilow waxay taladu ku taagan tahay waqtiga aniga ay dhageysanaysid naftaada inta jaanis ay haysato uga faa'iiday waayo hadhow waqtiga maanta aad videogan duubayo waa adiga galab axad waaye xilli habeen camal waaye axadda dambo dheyd kale iyo bil kale noqonaysaa iyadoo maalinta ay magaca ka siman yihiin ay haddana waqtiga ku kala bedelan yihiin jaanisyada noloshan waa sidaas oo kale dhalinyarnimadaada waqtigaaga aad haysato ka faa'iideyso come on ku noolaa quality life nolol quality leh oo qurux badan ku noolaa nolol quality leh oo qurux badan oo waxaan ku dhahay full of masha Allah tabarakallah diinteeda iyo wixeeda u dheelitiran tahay waa awoodaa 100% waa huwa hadda ilaahay subxaana wa tacaala aamintid ilaahay subxaana wa tacaala wuu kugu filan yahay marka ilaahay aamin noloshaada dhalinyarnimadaada jaaniska aa haysato ka faa'iideyso haddaa wiil tahay haddaa gabar tahay idima kala saarayay maxaa yeelay dadkii janalkay ku xiran waxay isugu jiraan wiil iyo gabar marka ka faa'iideyso waqtigaaga nolosha inta aad noolaanaysid ma ogid guarantee ma haysatid ka faa'iideysa noloshaada nolol cibaado leh qurux badan kaale arag ah sameyso mararka qaarkoodna waa inaad ka baxdaa circle-ka aad ku dhex jirtid saa hore carabka ugu soo dhiftay waayo circle-kaas keliya haddaa ku dhex jirtid waxaa adag inaad wax banaanka ka jiro aa ogaatid marka haddii aad rabtid wax banaanka ka jiro inaad soo ogaatid waa inaad awoodaa jaanisadaaday ka mid tahay inaad banaanka waxyaabaha yaala aad tijaabiso ya wax xun ma ahayaa
waxyaaba badan oo fiicfiicana banaanka yaalo markii indhaha furaan ku leeyahay ballanteenu waa jaaniskaaga inaad ka faa'iidaysato aadan qoomeynin waxaan ilaa meel baa joogtiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu janalkane xaqiisa siiya insha allah waa soo noqon doonaa hadduu ilaah yiraahdo